رئيسل وزراء حكومة فدرال كصومالية مدن حسن علي خير ومانت سو غاري magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa garoonka diyaaradaha shaati guduud ku soo dhaweeyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaano masuuliyiin iyo mas'uuliyiin kale iyo boqolaal ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasi oo muujinaya taageerada iyo sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinkiisa ujeedka safarka ra'iisul wasaare Khayro oo ku yimid magaalada Baydhabo ayaa ah mid ugu furgalayo baahida ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed sida amniga adeegyada bulshada si loogu daro qorshaha lagu horumarinayo hay'adaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xoreynta goobaha shacabka Soomaaliyeed ay wali ku dhibaateynayaan cadawga argagixisada Al-Shabaab taasi oo fududeynaysa furista wadada muhiimka ah ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo رئيسل وزراء حكومة فدرال كصومالية وكمانان dadweyne ah oo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa kula hadlay garoonka kubadda cagta Dr. Ayub ayaa bulshada reer Koonfur Galbeed uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen waxaana dhalinyarada u sheegay inuu u dhisayo garoonka kubadda cagta Dr. Ayub reer Baydhabo Janaay Sin salami Nabada Hergela Barida Eed ya inki mahadsantiin sida suurada leh hayna weynteen reer Baydhabo Janaay Sim Hilawi Isin Hilawtana reer Koonfur Galbeed Soomaaliya isin quudiya jirteen quudiyowkii yaa la isinka fadhiyaydaan maanta madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay booqashada uu ku yimid deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo ka warbixiyay waxyaabaha muhiimka ah ee doonayso Koonfur Galbeed in dawladda Soomaaliya ay ka caawiso dadka reer Koonfur Galbeed wali tiigsadayana horumar iyo dawladnimo iyo barwaaqo iyo bashbash iyo amni iyo cadaalad iyo horumar tiigsadaya wadana ra'iisul wasaare wuxuu rajayaan hooyada walaalaani waaji dadku reer Koonfur Galbeed iyo baahanayeen oo dawlad sida dawladeen inay suubii doonto insha Allah hooyada رئيسل وزراء حكومة فدرال كصومالية مدن حسن علي خير ومدحوينها كوفر قلبيد وقام هاد عليي كنا أماني هرمركا ديغانادا كوفر قلبيد يسيدا وناجيه حديدك الدولة دحي كوفر قلبيد هيا الشيغين انت وجوغو كلا هادلي دونو هرمرينتا عافمادكا وحبرشدا adkeynta amniga iyo xoreynta deegaanada Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab iyo sidii dhalinyarada Soomaalida ay shaqo u heli lahaayeen halkan waxaan u nimid aniga waqtigaan hogaaminayo inaan la fariisano madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeya madaxweynaheenu kala hadalno baahiyada ay qabtaan ku bilaawno sidii hay'adaha amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu sameyn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aan ka shaqeyn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u fur lahayn jidka isku xira xamar iyo Baydhabo hadii Ilaahay yiraahdo haddii qof Soomaaliya uu shaki uga jiro dadka Soomaaliyeed dawladna rabaan ku qoys qaado isbartiimada Baydhabo oo taaganaha maanta haddii qof Soomaaliyeed uu shaki uga jiro Soomaaliya hore u socotay kaala soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof Soomaaliyeed uu ka warwarsan yahay ma soo noqonay dalkii la yaqaanay ma noqonaynaa sharafteena ma soo celinaynaa kaalay ku qoys qaado haddii uu shaki kaaga jiray Baydhabo waa ku maadsan tahay maanta waxaa muuqata dawlad Soomaaliyeed oo go'aanka loo gaarin oo iyadu gaartay oo aan iyadu kala tashan cid idin matala lahayd laakiin iyadu idin matashay
وأن حوليهن إذن كحدين أما إذن كمسق ماسق لكن إذن دقاليسو والله حساب تنتعد والماء ودولة دوشة غيسي يدولة إذن ذلك ودقاليهن الدمهابين إذن كوسا ميسي وأدو إن دينت اللي إذن كعفيو وعيدن كين الدمهابين إذن كوسا ميسي وأدو إن دمان ديغانا عدو ويستلق حريو safarkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku yimid magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah qorshaha adeegyada dawladda lagu gaarsiinayo gobolada dalka iyo xoojinta xiriirka lagu horumarinayo dalka ee ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ka jira dalka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Baydhabo.